Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal. Waxaan ka cudur daaranayaa waqtiga badan ee channelka ka maqnaa waxbana aanan soo gelin. Laakiin waxaan idiin wadaa maanta qiso aad iyo aad u xiiso badan, aadna u gaaban. Shakhsigan maanta ka hadlayna wuxuu noloshiisii hoose ka soo bilaabay cunto kariye, waxaana u dallacay madaxweynaha waddankiisa. Laakiin markii uu madaxweynaha noqday waxa uu sameeyay mataqaana waxa uu sameeyay warqad ayuu u qoray boqoradda Ingiriiska waqtigaas isagoona ka codsaday guur, waliba u qoray warqad iyo fariin romansi ah. Ad ku arki doontiin muuqaalkan. Sidoo kalena waxa uu isku magacaabay madaxweynaha Scotland isagoo xaafadiisa ama qaaradiisu andhaho waddankiisu ku yaala bartamaha Afrika. Haddana he don't give a shit. Taana kuma joogsanay Israa'iil ayuu fariin u diray isagoona ka codsaday inay soo dhiibaan. Shakhsigan maanta ka hadlayna cid kale ma ah waa Idi Amin Dada. 1946 ayuu Idi Amin waxa uu ahaa cunto kariye ciidamadii Ingiriiska waddankaas Uganda joogay waddankaas andhaho xilligaas. Sidaan wada ogeyn Afrika badankeedu waxa ay gacanta ugu jirtay wadamo Yurub ah oo gumaysigooda ku hoos noolaayeen. Sidaana waddanka Idi Amin uu ka soo jeeda waxa uu xukun ama gumaysi ahaan u haystay Britania ama Ingiriiska. Idi Aminna waxa uu ahaa nin xoog weyn laakiin cunto kariye ah waddankiisana gumaysi ku jiro. Laakiin isagoo cunto kariye iska ayaa mid maalmaha kamid ah waxa uu yimid Idi Amin Dada waxaanu ku yiri sidan kuma anfacaysaniyo yaa akhi waa inaad gashaa ciidanka noqotaana ama kad gudubtaa macnaha kuma anfacaysa uu ka waalay magaranaysa kuma anfacaysa buu ku yiri inaad cunto kariis ka sii ahaato ciidanka galana war ku haye Idi Amin buf isagoo dhagalaaban ayuu galay ciidanka ilaa uu ka noqday mulaasim ama martabada sargaalka ciidamada. Ciidanka isagoo ku jirana 1962 Uganda waxay qaadatay istiqraarkeedii ama madax banaanideedii waana soo dallacay Idi Amin Dada isagoona noqday waxa uu soo gaaray martabada generaalka isagoo iska joogaya waxa uu maqlay in madaxweynihii waddankaas Uganda loo magacaabay uu u baxay safar. madaxweynaha waddankaas xilligaas waxa lagu magacaabi jiray Molton Obote magac iska adag weeyaan laakiin qorshayaasha madaxweynahaas uu lahaana waxay ahayd inuu ciid gacanta ku soo dhigo maadaama lacagta ku ciyaaray ciidanka. Idi Amin waxa uu xilligaas mid gacan laga taagay oo loo magac dhigi karin maadaama xoogna u lahaa generaalna u ahaa lacagtii ka soo horbaxday ciidanku leeyahayna wax walba oo rabo ayuu afka gashanay macnaha wax walba uu siisanay. Taan hore kugu soo sheegay ba he don't give a shit. 1965 Molton waxa uu tagay waxa uu tagay Malaysia wuxuu ku tagay safar daawaha daba madax adkada ninkan madaxweynihii isaga oonan tagin waddanka Malaysia macnaha diyaaradiisiiba aynan tagin ayuu magacaabay madaxweynenimo isku magacaabay afgambina u sheegay. madaxweynaha ayaa Idi Amin la soo hadlay isagoo ka rajeynaya inuu macnaha aqli ku dari doono wuxuuna ku yiri hello Idi Amin what are you doing my brother waxa uu jawaabay Idi Amin isagoo macnaha kursigiisa ku fadhiya do not come back if you come back you are dead macnaha hada soo noqoto yani waa qabrigan ba horusi gelaysa isku soo noqon weeyaan macnaha. Idi Amin xaq uu ka bedeli lahaa qorshayaasha madaxweynihii hore waxba muuna ka bedelin waxa uu sameeyay isaga ayaa isku magacaabay macnaha dadka wuxuu ku qasbay inay u bixiyaan magacyo cusub sida naaniistii koobaad wala baxay waxa ahayd saaxiib sacaada ama ninkii farxadda gacanta ku hayay in yar markuu joogayna magac kale la baxay oo ah madaxweynihii abadiga ahaa macnaha madaxweynihii weligiiba jiray president forever. Idi Amin siyaasadaha ku dhaqmaya waxay ahayd maadaama Uganda waxay qaadatay istiqraarkeedii ama madax banaanideedii laakiin hawdi waxay ku hoos nooshahay maxay Ingiriiska iyo Israa'iil. Idi Amin markaa uu xilka soo fuulay in yar step by step waxa uu jaray xiriirka wadamadaas waxaana la soo xirinayay Soviyetka. Britania ama Ingiriisku markuu arkay inuu Idi Amin ama Uganda ay kasii go'ayso iyaguna xiriirka u jareen. Xiriirka markaa uu jaray Idi Amin maxuu sameeyay waxa uu ku dhawaaqay inuu qacanta ama lugta hoosteeda mariyo Britania ama Ingiriiska uuna ka guuleystay. naanaysihiisii horena naanays kale ku sii daray oo ah ninkii furtay madaxweynihii Ingiriiska. isla markiina waxa uu isku magacaabay madaxweynihii Scotland maadaama Scotland waagaas waxay ka soo horjeeday in yar waxoogaa Ingiriiska saadarteedna uu jeclaa Scotland waxaana isku magacaabay madaxweynaha rasmiga ee Scotland. Idi Amin waxa uu dareemay in warar ay soo gaarayaan Israa'iil ay waxan ka faafinaysa si ay xukunkiisa u soo dhameystiraan isaguna wuxuu sameeyay ciidan gaar ah ayuu u sameeyay uu ku amray Israa'iil inay soo dhiibto Falastiin ay faraha ka qaado. Talab wax la codsanayo maaha waa amar man bixiyo kule saa waxay ku socotay baa noloshiisiina macnaha uu madaxweynenimada qasabka ku qabsaday saa uu sii waday ugu dambeyn waxay gaadhay inuu u diro risaalo boqortooyadii Ingiriiska macnaha boqorada lafteedii risaaladaas ama fariintaas oo romansiyad ahayd
yacni waxyaabo jacayl ah isagoo u bandhigaya iyada inay yacni guursato maadaama uu nin fiican yahay. Hadallada ku yidhina waxaa ka mid ahayd, "Waxaan kuu ballan qaadayaa inaad ku noolaatid xorriyadda hadalka, macnaha waxaad doonto aad sheegi kartid, laakiin kuma ballan qaadi karo hadalka aad tiraahdo kadib inaad sii noolaan doontid." This guy is legend. Noloshiisii waxoogaa kadibna waa laga soo horjeedsaday xukunkiisii ma uuna sii dheerayn, waxaana u baxsaday dhanka iyo Sacuudiga, waxaana dhintay ugu dambeyntii 2003. Ciidi Aminna haddaad yacni website-yada Ingiriisku ama meelaha reer galbeedku leeyihiin, waxaad arkaysaa inay leeyihiin Ciidi Amin waxa uu ahaa nin xun oo dadka meydkooga cuni jiray, talaajad iyo wax ku jiri jiray, talaajadana ku guri jiray dadka uu dilo, waxa uuna dilay wax ka badan 500,000 oo qof iyo bla 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 waxyaabo aan loo baahnayn. Laakiin haddaad akhrisid website-yada Carabta waxaad ogaanaysaa inuu ahaa yacni Ciidi Amin nin aan saa u sii xumayn oo yacni normal ah, qof iska caadiya oo ahaa oo wanaagsan. Aragti ahaantaydana waxaan qabaa maadaama reer galbeedku ka soo horjeedeen isna uu ka soo horjeeday, iyaguna website-yada leeyihiin, laga yaabaa inay taariikhdiisii dee waxay doonaan ka qorayaan maadaama way ka soo horjeedaan Soomaa. Ciidi Amin filin ayaa laga jilay, waxaana filinka lagu magacaabaa Hollywood ayaana lagu jilay filinkaas The Last King of Scotland. Muuqaalkeena maantana intaas ayuu ku ekaa. Waxaan rajaynayaa dad xaggan soo gaadhay inaad dhamaysato muuqaalka like saar, channelka subscribe saar. Waan ka cudur daaranayaa inaan in badan ka maqnaa muddo badan channelka. Inshallah we're gonna be update but nobody knows.